bondernews.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan halkan marti noogu ah Maslax Umar Ahmed oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaalada Buulanga iyo Zakariya Umar asigana kamid ah dhalinyarada degan magaalada Buulanga isla markaasina xafladan quruxda badan leh halkan ka dhaceyso oo ay soo abaabuleen waa Somali Youth Buulanga aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay idinkoo ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga ee idin siisay website-ka bondernews.com bal ya halkan fariimaha salaama halkan ya ka salaami leed Maslax aan ku hormariyo مسلمين خاصة قومية الصوماليات مجالنا مولنا قبل كدولنا وحاكلوا سلام كل أصحاب كيد قلت إنسان دور كنا Somali Youth Education وأسلوب خبر كيد وقتنا حتى نفرق البلد كمان شكل عدد ولا كاشنا يبلغ جاليد الصوماليات Somali كتير والله أدي وروح بلد حتى وحادينا والله كل عام وأنتم بخير سنة دنبنا وحاج على الله إني أد سنة بسي ويناتو سيدا نكسي قرب بدناتو وحكلو مهد علينا جورنال كنا ونقص بوق المجالات بولنا bondernews.com مركز أسينا وهم بلينا فيديو بولوديني بيسكون aad iyo aad ayaa u mahadsantahay iminkana waxaan wareysanaynaa Zakariya gacan furan ku soo dhawow aad iyo aad u mahadsantahay meesha maanta waxaan joognaa ومجالنا الحمد لله وهذا أول فرحنا وحنا هم بريء كثير ضمان aad iyo aad ayaa u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Zakariya oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaalada Buulanga isla markaasi xafladan quruxda badan leh oo sida heer sare loo soo agaasimay wax ka soo abaabulay aadan kugu mahad celinayna insha Allah aad u mahadsantahay ay بسم الله الرحمن الرحيم إمك واحد تاجر معلم نجاي وكمدا معلمين تأرددا وحكبرتا معد كيال مجال بورلانج أو كمبيوتر ردا معلم مركهرة يا ثالكن كسلام يسا waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr marka xiga maanta waa maalin gaar ahaaneed dhammaan diinta islaamka khaasatan ummadda Soomaaliyeed waxa farxad weyn ii ah maanta dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad isku xilqaamay oo soo abaabulay xafladan quruxda badan ee ujeedid dhalinyaradaas oo ah Somali Youth Buulanga oo qayb libaaxna ka qaatay socodka barnaamijkan waxaad u jeedaa sida ay caruurta Soomaaliyeed ugu faraxsan yihiin qaabaha ay u ciyaarayaan waalidiinta sida ay weynayaan caruurtooda hooyo aabba maloo kala harin isla markaasi qayb libaaxda ay ka qaadanayaan habsan socodka iyo farxadda caruurta maadaama annaga ayaanu nahno dad diaspora ah oo jooga haddana caruurteena ma dareensana qiimaha ay ku fadhido maalinta Ciidul Fadriga sida awgeed waalidiinta reer Buurland oo isku wada duuban waxa ay go'aan ku wada gaareen in caruurta la dareensiiyo qiimaha ay leedahay Ciidul Fadriga si caruurteena ay ugu xisaabtamaan maadaama wadan qurba anaga aan ku noolnahay haddana waxa jirta xafladaha kale ee qabanqaabada sida booskiska Christmaska yul oftanka waa ay dareemaan sababtoo ah dhaqankooda iyo wadankooda iskuulada markay caruurta ay ku laabtaan ardayda kale ee ajaanibta waxay ka sheekeeyaan dhaqankooda sida xafladda ay u qayb galeen iyo sida ay u faraxsanayeen iyo waxyaabihii ay sameeyeen sidaas si lamid ah caruurteena Soomaaliyeed waa inay dareemaan xafladda iyo qiimaha ay ku fadhido saddexda ciid ee islaamka kuwaasoo kala ah Ciidul Fadriga Ciidul Adha iyo maalinta Jimcaha inaan ciidda weynayno caruurteena aan dareensiino waa arrin aad u wanaagsan waana arki kartaa farxadda ka muuqata caruurta Soomaaliyeed iyo qalabka gaarka ah oo halkan loo keenay ayaga oo ku ciyaaraya qaybaha kala duwan ee qalabka kaasoo ay soo abaabuleen dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaalada Buulanga aad iyo aad ayaan ku faraxsanahay anigoo ka faa'iideysanahay fursadan qaaliga anoo ku hadlaya magaca maamulka bondernews.com iyo midnimanews.com labadaba aan wariye aan ka wada nahnay marka waxaan halkan aan salaan hawada aan marinayaa hooyaday Torreso Cabdi Cali oo degan magaalada Muqdisho
isla mar ahaantaasi hadda ku sugan magaalada muqdisho laakiin ila degan waddanka Sweden waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabteyda wadil waxaan ka salaamayaa halkan xasiskayga waxaan ka salaamayaa caruurteyda guud ahaan siday wada leeyihiin waxaan salaamkaas aan u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa inuu nabadooda gaarsiiyo barwaaqo cibaado suuban iyo cimri إن شاء الله تعالى كل عام وأنتم بخير السلام عليكم. إمكانه وحنو ورئيس اللي يلنا ننكر شخصيا